barqa wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada nuxurka warka kooban qodobadiisana waxaa kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya oo laga wado inuu kula la qaato madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladaha Shiinaha iyo Soomaaliya oo ka hadlay xoojinta ciidamada qalabka sida qodobadaas aad ku daawan doontaan ku soo dhawaada aynu ku bilaabnay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka iyadoona kulankooda uu xiriir ahaa toddobaadkan kulanka ayaa waxaa maanta si adag looga doodayaa qodobo kamid ah dastuurka iyo wax ka bedelkiisa maanta uu Talaada ayaana waxaana si gaar ah diiradda lagu saarayaa ka doodista cutubka 7 iyo 8 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee ku aadan wax ka bedelka qodobadiisa qaar iyo wax ku darista qodobo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inuu kulan la qaato madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya oo muddooyinkan safar ugu maqnaa dalka Itoobiya ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan qada sharaf ah la qaato hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani balse xogaha ahelna ayaa waxa ay sheegayaan in ay ka cagajiidayaan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ee ku aadan in kulanka madaxweynaha isla markaana ay daneynayaan furmida shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeya golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo Villa Soomaaliya wixii warar ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aad kaga bogan doontaan daawadayaal markana dawladaha Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen awoodsiinta ciidamada qalabka sida wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan la yeeshay safiirka Jamhuuriyadda dadka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaareen dagaalka kooxda Al-Shabaab iyo doorka saaxiibada Soomaaliya ee ku aadan taageerada iyo awoodsiinta ciidamada qalabka sida sidoo kale labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen muhiimadda ay u leedahay xasiloonida Soomaaliya nabadda iyo amniga guud ahaan gobolka Geeska Afrika guud ahaan nuxurka warka kooban ayaa halkaas ku soo gabagabeynayay nabadgelyo sooma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba u kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya